أظن مقابل هذين والله مقعد دونا أنا أنت نقول إن وضل له مقعد مرة في قاعد طريقة ما هنيك كليه قرقة استيج إسبارة دقائق ما هن عندي شرع شيء تو وضلنا شرع كشيء تو هل كان كعده إذا وكنسل وأبيه دول النمذج عصمنا باللابي مر والبحث تاجنا عشورة الذي كقاضو أنا قلت أنا قصرتين نقايسة مرة كاري تاسو حواي وحين بسنة هاي محمد الوالي وصحبه أجمعين قدوميها الدقمة هذا iyo maamulkiisa iyo shacabweynaha degmada hodan iyo agaasimayaasha iyo odayaasha ganacsatada degmada hodan dhammaan ka soo qaybgalayaasha bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan salaan gaar ah u jeedinayaa ardayda Soomaaliyeed ee halka munaasabadan ku sugan ayagana ka soo qaybgala munaasabadan si gaar ah idin salaamay ardaydeeda intaas kadib waxa waayay maanta waa maalin kale oo kamid ah maalmaha halkaan aan ka dhagax dhignay mid kamid ah mashaariicda horumarineed ee ka socda caasimadda Soomaaliya Muqdisho halkaan waxaan ku dhagax dhignay wadadan balaciidu aad buu u weyn yahay dhererkeeda aad uma fogo laakiin waa wado istiraatiiji ah sida la sheegay odamaad ka arkaysiin oo runtii wada ganacsiga iyo waxbarashada iyo deegaankaba intaba halbowla u ah markaan annaga marka ka maamul ahaan inaan magaalada aan dib u dhis ku sameeyno wadooyinka muhiimka ah si isu socodka gaadiidka iyo ganacsigaba oo aad ugu hagaagsanaado wanaagsanaado oo horumar dhinacaas aan ugu sameeyno waa mid kamid ah howlaha hortobinta u leh maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose xamar waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee degmada hodan oo runtii tusaale u ah isxilqaanka bulshada isku tashiga bulshada iyo la shaqaynta dawladda sideedaba waxa waayay waxay ku tiirsantahay waxa waay ilaahay ka sukow bulshada markaan inay baahiyaha tilmaamtona waa loo baahan yahay dawladda waxay ka qaban kartaa ay ka qabato heer qaran iyo heer gobol mararka qaarkoodna bulshada degmada hodanna ayaga laftirkooda inay kaalin qaataan ayaa laga rabaa ay tusaale u noqdaan kaalintaasna waad qaadateen reer hodan waan idin ognahay waana idinka mahadcelinaynaa waana sheegaynaa inaad mar walba wadooyin laami ah iyo kuwa interlog ah iyo mar walba aad idinka kaalinta koowaad ka qaadataan dib u dhiska magaalada gaar ahaan dib u dhiska degmada hodan ganacsatada kale ee ku dhaqan magaaladan ayagana sidaas oo kale ayaan runtii uga maarta baaqaya inay ku daysadaan ganacsatada iyo shacabka degmada hodan iyo maamulka degmada hodan ayagana sidaas baan maarta u rajeynayaa magaalada Muqdisho waxay ku dhowdahay in dhammaan wadooyinkeedii ay dhismaan intaan ka ahayn wadada warshada oo iyadana hadii la yiraahdo markaan dhaxdaan ka dhamaan hadda tii shacli suufi oo taagneed waa dhaqaajinay debka waa gebageba waa ogtihiin shaqaalaha wuu socdaa haddii ilaahay kuuro ilaa dayni ilaa kaxda tii jamhuuriya oo idin halbowlehe daraadaan dhagax dhignay oo culays ka taagnay alxamdulilah waa lagu guulaystay waxaan rabnaa markaan sidaan gudaha uga baxno sanadkan cusub dhexdiisa inaa jidka warshadaha insha allahu tacaala aan dhisnaan doonina haddii ilaahay yidhaahdo saa hore u ballan qaadnay waana arrinta beriga ma taqaanaa magaaladan caasimadda Soomaaliya waaye muraayadii waddanka waaye inay sidii muraayad u dhalaasho oo nabadgelyadeeda ay dhalaasho oo dadkeeda dhalaalaan oo wadooyinkeeda dhalaanaan loo baahan yahay haddii la yidho nadaafadda ku dhawaad 700 ayaan gaarsiinay shaqaalaheeda mushaarkana waa u kordhinay shirkadaha iyo maaragtay hadda ka shaqeeyo ayaan ayagana isla xisaabtan ku wadnaa xeerka nadaafadda gobolka Banaadirna waa dhammaystirnay mar dhow waa la saxiixayaa waxaa soo bixi doona xeer la yiraahdo xeerka nadaafadda gobolka Banaadir oo ciddii nadaafadda ku xadgudubto lagu ganaaxayo oo maxkamad lagu horgeynayo oo gebageba ah xeerkaas meesha ka maqnaa asna waa gebagabeynay marka waxaan rabnaa wadooyinka la dhisay nadaafadooda in la ilaashado cid kastoo qaab positive uga qayb qaadahaysana waan soo dhaweeynaa oo bulshada abaabulayso waxa waaye annaga dawladda wadooyinka inaan nadiifino qashinka ka qaadno waa awoodnaa laakiin xaafadaha gudahooda iyo guryaha hoostooda bulshada kaalin ku leh marka bulshada ayaga laftirkooda inay wacyi yeelato dowrka marka dhalinyarta ay tiktokarada ay u qumayaan maaragtay positive ka waa kaas waa waraasiya marka bulshada ha baraarugto
adiga kaalintiina ka qaata meeshii la soo sheegana waxa waaye aniga hadda waxaan kaloo sameynay mar dhow oo markii ugu horreysay aan sameeyey qayb dhan oo la yidhaahdo kormeerka nadaafadda ayagana waa diyaarinay number shaqaalaha loo qoray maamulaa loo sameeyey waxaan rabnaa inaan meeshiiba nadaafad darro lagu soo arkay inta lasoo kormeero lasoo sheego oo waaxda ku shaqada leh ama shirkadda ku shaqada leh lagula xisaabtamo markaan hawlahaasoo dhan waa wadnaa haddii la yidhaahdo bulshada markaan annaga isla xisaabtanna waa ogolnahay isnaqdinna waa ogolnahay fartiina ogol fiiqa waa ogolnahay waxaasoo dhan waxay noo yihiin muraayadeenna waxaabaa nafteeda waxaan na tusayso waa bulshada haddaan shaqo wanaagsan qabannana ayagaa sheegayo hadday meel wax ka qaldigiina waa sheegaynaa waana ku baxaynaa markaan inaan wada shaqayno oon gacmaha isqabsanno oo waxaanoo dhanna waxaa asal iyo asaas u ah nabadgelyada caasimadda ay haysato alxamdulillah ilahan ku mahadahaynaa dowladdeena iyo ciidamadeena nabadgelyadaan ku mahadahaynaa waxaan rabnaa inaad nabadgelyadaasna aad ku fara adeegtaan oo aad ciidamada nabadgelyada heer gobol iyo heer qaran booliiska iyo nabad sugidda aad la shaqaysaan tan ugu dambaysa waxaa waaye dhibaatooyin beryahan dambe soo baxay waxay tahay waddadan adaad arkaysaa weyni ka badan leh waxaa laga yaabaa meelaha qaar inay guryo si cashwaaya u soo galeen waa midda jamhuuriya lagu sameeyo kale jamhuuriya 30 ay ahayd qaybteeda koobaad qaybta ka 25 ay ahayd waxaan u tagnay wax ka yar 20 yani nin walba waa iska soo geliye fisi warqad baan fisi wadada lagu cunay bilmunaasaba aniga gobolka markii lamaadaan soo mara waaye dadkii la shaqeeyay waa ogii warqadahiina waa yaalaan nootayooyinkuna waa yaalaan 2014 markaan joogay waligay fisi ma saxiixin waligay fisi ma saxiixin haddana fisi kastoo la keeno waa diiday sabab sideedaba fisi haddaad maqasho waa qaadicu dariiqnimo waay qaadicu dariiqa ma aha ninka kaliya qoriga haystay isbaarada dhigaay ma ahan wadda babliga ee dadka ka dhaxayso oo maslaxa caam ah oo gurigan xaq uu ku leeyahay kana xaq uu ku leeyahay adigana soo cariiri sidee tiraahdo anaa intaan dhisanayo xaq darra qaadado haysa marka hadda adiga kistaas qaadatid qofkii kale dhinacan ka soo jeedan oo kistaa qaato macnaheedu marka wadada waa xiranta waay magaalada waxaad ku arkaysaa wadooyin waaweyn ee baawur mari kare ee maanta uusan gaari gacan mari karin in walba dhinaca ka soo gale marka taa maxay noqonaysaa marka qaadicu dariiqnimo ay noqonay daraad marka wadada jamhuuriya farayne 3 maalmood aan looga baxay jibiska ilaa xawa casr ilaa jamhuuriya wadadan waxaan rabnaa cid kastee soo gashay gudoomiyaha degmada iyo maamulka maaragtay waaxda dhulka qaybta farsamada waxay amran yihiin inay rinji ku qoraan 7 maalmood ay digniina siiyaan dabadeedna ciddii ka bixi weyso waa laga duminaa ciddii sharci sheegato waddadaa sharci ka sheegaysto halkaanan ka caddeeya idina waa cancel warqadeeda cancellation waa soo saaraa sababtoo waxaa waaye meel kale raaso waddadan waa dan caam ah adiga xaq gaara uma lihid xaqa aad ku leedahay waxaa waaye xaqul murur waaye inaad marto sida dadka kale u marayaan laakiin adiga dhisata kale waxay noqonaysaa waa sharci darray noqonaysaa markaan in la iska soo gala maaha marka haddii la yidhahdo marka guddoomi waa maasan tahay waa ii ishaartay cabdiqaasim salaad xasan midaan imid ka dheer ayuu mudan yahay bacdamaa laakiin dadka deegaanka hadda ay u niyeysteen oo aan ku dhawaaqay anigana waddadan waxaa la yidhaahdaa waddada madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ayaa la yidhaahdaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa weliba cabdiqaasim waa aabbihii dowladnimada cusubna bilaabay waa ilaahay kuu roo yahay nin odayahoo dib u heshiisiinta wax weyn ka soo shaqeeyey doctor dowladdii horena aad ugu soo shaqeeyay taariikh wanaagsan leh marka waxaa waaye ilaahay madaxiisa haraajiyo qaatumadana la u suubiyo welina talo iyo waxaa loogu tagaa iyo la tashi oo qaahir uu degan yahay weliba halkaas aan diris ka nahay marka madaxweyne cabdiqaasim midaan iyo mid ka dheerna wuu mudan yahay waana ku magacaabi doonaa haddii la raatanna waan ku magacaawnay waa sidaad bulshada cusatay waddada cabdiqaasim salaad xasan masalada odamungaabo adigana waa lagu magacaabi doonaa ani intaa noole in wadda laygu magacaabo ma rabi qofta hadday madaxweyne noqoto kale haa oo de madaxweynihii jamhuuriyadda qaranka ay noqoto waxbaa lagu magacaabaa laakiin qof yaroo lasoo magacaabo bulshadiina u adeegto hadday ida waddadii anaa dhisay anaan isku magacaabo ay tidhaahdo anaa gota anaana goosaartay noqonaysaa marka aniga taas waxaa waaye waxaan aaminsanahay waddooyinka amba madaxweyneyaasha amba akhyaartii hore waddankan taariikh ka gashay laakiin tagtay in lagu xasuusto oo marka saas loo qoray saana arki jirnay marka laakiin qof nool hadday tiraa saaga waddadan anaana magacaawda mungaabana la yidhaahdaa aniga kuley taas ma dhihi kari marka haddii ilaahay kureey marka waa ku cudur daaraha haddii ilaahay tayna noo timaado wixii aan qabano wanaagsan ilaahay miisaanka xasanaadka noo saaro haddii markaan dadka inay gartaan sheegana maalinkeeda laakiin anaga waxaa waaye waxqabadka waxay tahay bulshadan in loo adeego waajibkii madaxda qaranka noo xisaartay ilaahayna uu qadarin inaan gudano
taasay muhiimaddu tahay mar labaad mar saddexaad waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxa waaye wax alla dowladda hoose waxay diyaar u tahay inay MCA-yada dayactirto inay ilaahay kuuroo yahay isbitaalada dayactirto iskuulaha waxbarasho iskuullo oo lacag la'aan waan diyaarinaynaa waad aragteen daraad aan xariga ka jaraynay mar walba waxaan u taaganahay cashuurta leedii ka qaado inaan ku bixino maaragtay 90% 80% inaan ku bixino haddii ilaahay kuuroo yahay horumarka magaaladan haddii ilaahay kuuroo say u kala muhiimsan tahay waana salaamantiin